dowladda Puntland madaxa local NGO yeso Puntland khubarada tababarka insha Allah bixin doonta iyo dhammaan mas'uuliyiinta ama dad ka soo qayb galay shirkan xaafadaha عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد السلام. سيدا عنوان كان كقرآن وشيء مهم هو إن مركي لها الله أمني مركي لها الله عدالة ضدكو وحيو فهميان بالشدو إن محكمتها هي أمني مركي لها الله عدالة محكمة كينيته هدي أمن لها الله وحيو فهميان وزارة أمني كليه تبارك مركي مهم وحين يكون هاي بالشدو وقت اللي فهمسيو عدالة محلها عدالة waxay ka bilaabanaysaa cadaalad guriga ka bilaabanaysaa waxay ka bilaabanaysaa waalidka ilmihiisa cadaalad ugu sameeyo labada ilmood markaad waxbarashada geynaysid markaad cunada siinaysid markaad wax soo geedaysid waxa weeye xuquuq weey halkaas halkaas soo bilaabata cadaaladu marka ilmaha markii cadaalad la baro ilmahaasi bari madax buu noqonayaa mas'uul buu noqonayaa wax la baro waxbarashadii beemanaysa si tartiib ilaa degmo ilaa maayir bay arintii kor u gudbaysaa markaasay ku gudbaysaa laakiin hadii loo fahmo qaali ma cadaad loo fahmo waa maaha marka barnaamijka tabarkan waxaan idin ka fahamsiin doonaa cadaaladda meesha ka bilaabanayso amniga sidoo kale security-ku bulshada ayaa security galisa laakiin wasaaradda amni iyo booliis halka taagan muhiim ah community police waxa la jira caalamka horumaray waxay fiiriyaan security markii laga hadlayo bulshada wardiyaysa xaafadaas cida ku soo kordhay bulshada ayaa taqaana marka tabarkaana marka shanta bari soconaya muhiim u yahay oo horta dadku in bulshada la fahamsiyo waago waxa la tabari jiray garsooryaasha prosecutorski booliski laakiin in hoos laga soo bilaabo xaafadaha la fahamsiyo iskuul maxaa la cadaalad maxaa la jasma Allah lamaana diitu ka hadashay iyo arimaha ugu dar hadda dhulka waxyaalaha ugu daran maanta Soomaaliya ama Puntland ama Garowe haysta xitaa arimaha dhulku meel adag u maray xaaladiisa dawladda waxa laga maanta in waxba dhul gacan ku helo dad ay ku habsadeen qof walba ku xisaabtamayo oo ku fikirayo maanta toban dhul buu leeyahay ilaa $100,000 inuu ay soo geliso oo ku fikirayo inuu gaaro gato Land Cruiser inuu guri uu shaqaysan guri cad ku gato laakiin ilaahay wuxuu yiri famshu fi manakaba kullu rizq wa yanushu marka waxa la rabaa rizq waxa la rabaa kasb la yimaado aad kasbtid oo dhidid laakiin hantidan ama dhulkaani bulshada wax ku leh indhool wax ku leh luqlaha wax ku leh talafsigeeda waxa la rabaa in la fahmo diiniyan iyo maadiyan cilmiyan la fahmo loo baahan yahay oo xuquuqdaas bari aqraxta la weydiinayo dhulku baahidaada ka badan adigu malid marka talafsigeeda waxa la rabaa in la fahmo xalinta sulxa iyo khilaafaadkana diinta ka hadashay waxa weeyaan sulxu khayr ba ku jira in ayadana qaabka la soo xaliyo dispute ama doodaha ay laftigeedu waa tabar ku jiri doona marka aad u mahadsanyihiin qolada yeeso iyo degmadaba say u soo aabishay barnaamijkaana insha Allah waa barnaamij hadda cusub oo la rabo in hoos loo dajiyo intii kor waxba laga soo bilaabi lahaa si bulsho iyo dawladda dhexe iyo dawladda hoosaba midaysan loo helo ayaa barnaamijkan iyo tabarkan muhiimadiisu ay tahay shanta bari soconaya waxa la rabaa inaad ka qayb gashaan inaad jaanisiisaan inaad u aragtaan seminar in loo arko in aqoon ka helis oo aad ka faa'iideys loo arko laakiin hada seminar loo arko iyo workshop shabari soconaya waxba laga faa'iido maayo haddana shan kale baa sugaysan laakiin hada cilmiyan u barataan u fahamtaan cilmiye tahay oo waqti ilaalisan oo timeka imaanas ilaalisan waxa weeyaan tababarka faa'iido oo dadka tababarka wada waqti in siinayo la soo tababaray aad ka faa'iideystaan faa'iido keenaysan laakiin hadii loo arko seminar waxba laga faa'iido maayo sida aan xogahaan aan ku hayno oo aqoontu mid kale barnaamijka waxa loo sameeyaa waxay tahay dadku inay la tuso in ay mas'uul ka yihiin dalkooda iyo dadkooda aan marba aan wax laga sugeyn hay'adaha caalamiga oo isku tashano aad waa maasantiin shanta bari barnaamijkana ونفري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.